Assalaamu calaykum saaxiibayaal halkani waa Casiib Media ku soo dhawaada qaybtii saddexaad ee qisadii Hodan iyo Haaruun. Haaruun markuu tagay halkii uu deganaa wuu iska seexday oo waa uu daalanaa. Maalintii xigtay ayuu furay boorsadii dharka si uu ugu bixiyo dharka. Kadibna wuxuu arkay buuggii gabadhiisa yar siday oo boorsada ku jira. Buuggii meel ayuu saaray oo waa uu degdegsanaa kama uusan gaarin akhrintiisa. 3 maalin kadib ayuu arkay buuggii kadibna waxa uu fiiriyay waxa ku qoran. Wuxuu ogaaday inuu yahay xasuus qorkii Hodan. Waxa uu soo xasuustay siday u naxsaneyd Hodan markuu ugu galayay qolkeeda ayada oo lugteeda dhiigayso. Wuxuuna dareemay inuu ka galay qalad weyn. Buuggii ayuu sii waday akhrintiisa waxaana ku qornaa taariikhdu markay ahayd 16 bisha 1 2015 waxaan imaaday magaalada Muqdisho si aan jaamacad u galo oo aan wax u barto. Riyadaydu waxay ahayd in aan ganacsi barto oo ganacsi gaar ah sameysto si aan u noqdo qof isku filan oo fikradahayga aan ka dhabeeyo. Maanta waa 5 bisha 6 2021 waxaan noloshayda qabsaday wax aanan filanaynin. Maamada ayaa waxay ii sheegtay in ay la dardaarantay walaashay inta aysan geeriyoonin ka hor. oo ay ku tiri Hodan iyo Haaruun isku guuri si ay gabadhayda hooyo ugu noqoto maadaama ay soo aragtay dhibka hooyo la'aantu leedahay si ay u fahanto gabadhayda oo ay igu koriso sida hooyadeed oo kale. Waa naxsanahay waxaan sameeyo ma aqaano guur diyaar uma ihi gaar ahaan ninka walaashay qaba mana jecli inaan guursado. Dardaaranka walaashay miyaan fuliyaa mise noloshayda iyo riyadayda ayaan doortaa. Maamada waxaan ugu jawaabo ma aqaano maxaan sameeyaa. Allahayow waxaan ka baryayaa inaad igu aadiso wadada khayrka igu jiro. Haaruun intaa markuu aqriyay intuu naxay ayuu moobilka la soo booday oo durbadiiba wuxuu wacay hooyadii. Hooyo Faaduma ayaa taleefanka ka qabatay waxa ayna ku tiri hooyo see tahay wiilkaygiyow. Haaruun ayaa ku yiri hooyadii hooyo waan fiicanahay mideeda kale hooyo adiga soo ima dhihin guurkaaga Hodan raali ayay ka tahay maxaa beenta iigu sheegtay. Hooyo Faaduma ayaa ku tiri wiilkeeda haa hooyo laakiin maxaa kugu dhacay oo la ooynaysaa. Haaruun ayaa hooyadii waxa uu ku yiri hooyo maxaad iigu sheegi weyday in ay xaaskayga kula dardaarantay oo ay kugu dhahday Hodan guriga keen. Hooyo Faaduma intay isku naxday ayay ugu jawaabtay hooyo marxuumadda ayaa iga codsatay in aanan kuu sheegin waayo maysan rabin inuu guurkaaga ka halaabo oo uu ka noqonin dardaaran fulis oo kaliya ee waxay rabtay inaa Hodan si dhab ah isku guursataan oo gabadha yari aysan cidloonin adigana aadan cidloonin. Haaruun markuu hubsaday in hadalka buugga ku qoran uu sax yahay ayuu moobilka damiyay. Wuxuuna bilaabay in uu ooyo in uu qayliyo iyo in uu ka shalaayo wixii dhibaato iyo qaylo ahaa ee uu ku sameeyay Hodan. Wuxuuna ku fikirayay sida ay u tahay qof dulqaad badan iyo sida ay u qarisay oo ay daacad uga ahayd dardaarankii walaasheed oo ay ugu doorbiday nolosheedii iyo riyadeedii kaliya si ay u koriso gabadhiisa yar. Hodan waxa uu bilowday jaamacadda sanadkii 4 waxaana u bilowday buuggii qoristiisa oo aad bay mashquul u tahay. Haaruun wuxuu markii ugu horeysay 2 sano kadib moobilkiisa ku safgareeyay lambarka taleefanka Hodan oo uu hooyadii ka soo qaatay. Wuxuu maskaxdiisa ka raadiyay wajiga Hodan balse maba uu soo xasuusanayo wajigeeda waayo indhihiisa maba uusan siin jirin oo ma uusan fiirin jirin inta badan. Wuxuu isku dayay in uu ka waco moobilka ay gabadhiisa kala hadalsiin jirtay. Durbadiiba waa ay ka qabatay balse sidii caadada ahayd wajigeeda kuma jeedo kaamirada waayo isaga ayaa hadda ka hor ku qayliyay oo ku yiri gabadhayda in aan arko ayaan u soo wactamay. Gabadhayda oo kaliya ku aadi moobilka oo kaamirada dambe fur wajigaaga oo dhan iga qari. Gabadhiisa ayay tusisay oo ay u dhiibtay moobilka si uu ula sheekaysto laakiin Haaruun gabadhiisa uma soo wactamin wuxuu rabay in uu arko Hodan. Hodan u geey moobilka ayuu ku yiri gabadhiisa yareed markay u geysay ayay wajigeeda ka leexisay waxayna furtay kaamirada dambe balse Haaruun ayaa weydiiyay markii ugu horeysay xaaladeeda oo ku yiri sidee tahay. Hodan waxay u fahantay in uu la hadlayo gabadhiisa oo waxa ay ku dhahday way fiican tahay wax dhib ahna ma jiraan waxayna u dhiibtay moobilka gabadha yar. Isaga ayaa ku soo celiyay sidee tahay adiga ayaan kula hadlayaa Hodan. Waa markii ugu horeysay uu magaceeda afkiisa soo maro oo dib buu u fikiray wuxuuna is weydiiyay goormee magaceeda ugu wici jirtay waayabe. Hodan wayba dhaqaajisay maba aysan maqlin hadalka oo waxay aaday jikada si ay qado ugu keento maamada. Haaruun markuu arkay in gabadhiisa yar oo kaliya ay la hadlayso ayuu weydiiyay habar yar aaway. Waxay ku tiri way baxday jikada ayay aaday hooyo ayeeye ayay isla qadaynayaan.
Haaruun wuu ka baxay video call-kii oo wax yar kadib wuxuu video call ka soo galay taleefankii hooyadiis si uu ula hadlo. Halkaa ha inoo joogto qaybta 3aad ee qisadii Hodan iyo Haaruun. La soco qaybta 4aad hadduu Rabbi raali ka noqdo. Daawade haddii aad ka heshay qisadani waxaan kaa codsanayaa inaad like saarto muuqaalkan. Ku soo biir channelka haddii aad ku cusub tahay oo subscribe taabo. Furo gambaleelka si aad ula socoto muuqaaladeena dambe. Tan intaan kulmayno muuqaalkani mid ka xiga sidaas iyo nabadgelyo.